waxaa markeliya hawada isku shareertay xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolka Awdal ee ka wada tirsan xukuumadda Somaliland kalena ah madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Saad iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin. saddexdan mas-uul ayaa waxa ay ku wada tartamayaan jagada gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye, taasoo waqti xaadirkani uu hayo ama jagadaas uu ku fadhiyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. hase ahaatee saddexdan mas-uul ayaa waxay iyagu wada shubeen lacagta loogu tartamayo jagadaasi. shuruudaha looga baahan yahay ayaa waxaa ka mid ahaa in musharaxu uu xisbiga ku jiray 5 sano ee u dambeysay. hase ahaatee sida la wada ogsoon yahay waxaa muddo 10 sano ka badan xisbiga kulmiye ku jiray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Saylici, halka labada wasiir ee Axmed Muumin Saad iyo Maxamuud Xasan Sacad Saajin ay iyaguna wax ka yar 5 sano ay ku jiraan xisbiga kulmiye, taasoo shuruudihii looga baahnaa uu buuxin waayay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Muumin Saad oo isagu shubay lacagta loogu tartamayo jagada gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye. hase ahaatee waxaana la garanaynin sababta wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin isagu shuruudaasi ay u qaban weyday maadaama muddo ka yar 5 sano uu xisbiga ka mid yahay, taasoo uu sheegay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo maanta warbaahinta la hadlay oo xagugaal u ah xisbiga kulmiye, waxaana uu ka sheekeeyay waqtiga ay isbarteen madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka ganacsiga Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin xilligaas oo ay ku kulmeen dalka Imaaraadka Carabta. kama waqti foga wasiirka ganacsigu Saajin ina Muumin Saad markaan soo koobo waddanka Imaaraadka Carabta ayaanu tagnay anagoo wafdi ah. madaxweynuhuna waa nagu jiray Muuse Biixi isagoo markaa gudoomiye musharaxna ah. waxaanu u tagnay Saleebaan Axmed Guuleed gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo waanu ugu tagnay qalliin ka baxay hudeel noo reer Boorama aan wada qadaynay uu ku jiro Saajin halkaasaanu ka soo hanuuninay oo ka soo kulmiyay maalintaa aniga Muuse Biixi oo isagoo benshan galay waliba aanu ku nidhi wardaad tan wax ka doonaysana kaalay ta dambe haddaad wax ka doonaysaa kaalay noo nala shaqee oo maanta reer Boorame iyo meesha qalcadda Jibriil Yoonis nala jabi ee kulmiye ka maqan yahay. saasay waa sanadkii ugu dambeeyay sidii uu ku soo dhoofay ku yimi ballankii fuliyay kulmiye la shaqeeyay. marka taasina waxaas waxay wada muujinayaan wax uun dee la iska canta tabanayo muxuu ahaa wax walbana waa la isog yahay dee cidina isma qaldi karto. si kastaba ha ahaatee Axmed Muumin Saad wasiirka horumarinta beeraha Somaliland oo isagu marar badan ku guuldaraystay inuu ka soo baxo xisbiyadii kala duwanaa ee uu ka midka ahaa ayaa imikana isagu tartankani ka hadhay, balse labada mas-uul ee kala ah madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin ayaa iyagu gorada iskula jira kuna tartamaya gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye oo haatan hayo Cabdiraxmaan Saylici. hase ahaatee warar xogo hoose ah oo aanu ka helayno madaxtooyada Somaliland ayaa sheegaya in magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ay ku wada sugan yihiin xubno u dhow labada mas-uul, kuwaas oo iyaguna ku dadaalaya sidii uu mid walba midkood u soo bixi lahaa. wararka aanu ka helayno xubnaha iyagoo la kala safan mas-uuliyiintan ayaa waxay sheegayaan in la isa soo horfadhiisanayo labada mas-uul iyo xubnaha la kala safan usbuucan gudihiisa, waxayna wararku intaa ku darayaan in la rabo in lagu qanciyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici inuu isagu ka tanaasulo tartanka loogu jiro jagada gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye, taas oo uu hayo waqti badan. hase ahaatee waxaanu ka dhur sugaynaa kulanka dhexmari doona labada mas-uul ee tartanka ku wada jira iyo xubnaha la kala safan ee ku wada sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Sikriya Cabdi Shafaar, Sikriya Saxane, magaalada Boorama.